Ma ogtahay sababta dad badan ay u guuldareystaan inay sii wataan caado wanaagsan sida akhriska, jimicsiga ama waxbarashadooda ay isbarayaan ama wax kale oo markaas nimacsan yihiin inay joogteeyaan? Sababta ma ahan inay caajisan yihiin oo keliya, balse waa inaysan garan habka wax loo joogteeyo loonana qabsado. Muuqaalkan waxaan kugu sheegayaa sirta ka dambeysa joogteynta si aad wax walba uga dhigi karto caado adig kuu fudud. Qodobkeena koowaad, ku bilow yool yar. Dad badan waxay ku bilaabaan wax weyn hal mar, sida maalin kasta 2 saac buug ayaan akhrinayaa. Taasina waxay noqotaa culays, laakiin haddii aad ku bilowdo wax yar sida 10 daqiiqo akhris maalin kasta, maskaxdu way aqbali doontaa. Tusaale, haddii aad rabto jimicsi, ku bilow 5 daqiiqo oo keliya, kadibna si tartiib ah u kordhi caadadaas adigoo sameynaya maalin kasta. Qodobkeena labaad, samee jadwal iyo go'aan cad. Caado joogto ah waxay u baahan tahay meel iyo waqti joogto ah. Haddii aad dhahdo markaan helo firaaqo ayaan sameynayaa, ma dhici doonto. Hadda bilow una samee jadwal iyo go'aan cad. Qodobkeena saddexaad, samee xasuusin la socod ah. Isticmaal to-do list application ama xasuusin mobilka. Markastoo aad dhammayso hawsha, calaamade oo tig saar. Maskaxdu waxay dareemaysaa guul yar, taasoo kugu dhiirigelinaysa sii wadista caadadaas. Tusaale, isticmaal applicationka habit track ama buug yar oo aad ku qorato hawlahaaga. Qodobkeena afaraad, abuur deegaan kugu habboon. Waxaad joogteyn kartaa waxyaabo badan haddii deegaankaaga kugu taageero. Haddii aad rabto akhris, dhig buugga agtaada sariirta ama meel kale oo markaas kaaga muuqanayo. Haddii aad rabto jimicsi, qalabka jimicsiga sii diyaarso, meel ay kaaga muuqdaanna dhigo. Deegaankaaga ayaa kugu riixaya inaad sii wado caadadaas. Qodobkeena shanaad, abaalmarin sii naftaada. Markasta waxay jeceshahay abaalmarin. Maskaxdu waxay jeceshahay abaalmarin. Haddii aad dhammayso hawsha aad joogteynayso, naftaada ku abaalmari wax yar. Tusaale, 1 saac waxbarasho markaa baratid, daawo filin ama cunto macaan oo yar, ama wixii aad awooddo naftaada ku abaalmari. Abaalmarintu waxay ka dhigaysaa caadadaada mid xiiso leh. Qodobkeena lixaad, isku xir dad ku taageera. Haddii aad wax keli samayso, waxaa fududaanaysa inaad joojiso, laakiin haddii aad la samayso saaxiibo ku dhiirigelinaya ama group online ah, waxaad dareemaysaa mas'uuliyad. Tusaale, isku xir saaxiib si aad wax u wada akhristaan maalin kasta ama aad u wada samaysaan jimicsi. Xasuusino, guushu ma ahan wax weyn oo hal mar kuu yimaada, balse waa wax yar oo aad maalin kasta joogteyso. Haddii aad rabto inaad noloshaada beddesho, maanta bilow caado yar, joogtee, kadibna noloshaada way isbedeli doontaa insha Allah. Haddii muuqaalkan ku anfacay, ha ilaawin inaad dhahdo like, share iyo subscribe si aan u sii wadno talooyin kaa caawinaya inaad noqoto qof ka duwan qofkii hore.